هو نكسر وحنين دافي ويدارنا يوم تاريخ واوين يوم وحيدة حي حتى ولا قوري وذا شيري يوم ماموس واوا ولا قوة حياة وجهايو أنا ويسكيمانو نقوي عني سيدي ويل الشيء وانكو وغلايا وحبو نفطر برن ربي جاي من قوضها وينو هكاديو واحد كاشو صنديقو مدوعنقو على واحد كاشو صنديقو مدوعنقو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يا الكسر هذا برنامج كارون كويجينو دعوين كي سنة كي تجي لبضة كوني أفريقيا طبنكا إقبل كتاب مرد برنامج كاسيو نقدونا مدنا يبدأ تابنا يا سيده هركي وحقبة كلا دونا ka qabsoomay sanadii aynu soo dhaafnay deegaanada gobolka Daadmareed iyo waliba waxyaabihii ugu xiisaha badnaa ama ay bulshadu ugu hadalhaynta badnayd barnaamijkan waxa idin la socodsiinaya anigoo Muuse Salebaan Maxamed ah ee daawasho wacan labadii bishii koobaad ee sanadkii tagay 2014 ayaa wafdi ballaaran oo hogaaminayo wasiirka madaxtooyada Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Xirsi Xaaji Cali isla markaana ay wehelinayaan wasiir ku-xigeenka ganacsiga Bashiir Cabdi Xariir xildhibaano iyo waliba gudida wadada isku xidhaysa Burco Oodweyne iyo Hargeysa soo gaadheen magaalada Oodweyne wafdidaas oo socdaalkoodu ku salaysnaa oo kuurgelida xaaladaha wadada ayaa ugu horeyntii wafdidu kulan ballaaran la qaateen salaadiinta cuqaasha iyo dhammaanba bulshada qaybaheeda kala duwan الله ولا بدن كهي فرعو عندنا قوان صدين هذا الشيء شعب كرهلود وينه وعنصر وين يقبل كا الدمدة بقى فركن ساس أورنتي على بنا عنو كذا دل عن دل كي نكتشرني وعنو بنا عيجا عنو يسكت ديني إن عنو كقيم قاعد مسؤولين تيجوا رئيسي بعشرة صعدار كبير روح هاي الموضوع حالة دي وكل الله سيدا كلامنا دردر قلينه سيدي wadada u socnay hawsheedu wadada Oodweyne ma markii koobaad ay isugu nimaadno waxaan marar badan ku kulannay sidii waxa weeye wadadan loo dhameystiri lahaa hawsheeda loo geli lahaa qaranka dhisay isku xidhaysay degmada Oodweyne dhinaca Burco ku xidhaysay dhinaca Hargeysa ku xidhaysay halkay marayso in la soo xogoreysta ay waqtiga madaxweynuhu u soo diray waqtiga waxa uu gaaminayay saarkiisa wasiirka madaxtooyada Xirsi Cali Xaaji Xasan xildhibaan maxamed xaaji yuusuf yaani uu ka koobanahay wax waqtigu ka kooban yahay gudidii horumarinta gobolka ayaa socota injineeradii wadada xagga Burco ka soo waday baa nala socda suldaankii odayaashii kale waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa gobolka iyo dadka reer Oodweyne oo dadaal badan ka sameeyay xoolo ururintii oo golaha deegaanku kamid aha oo salaadiintu kamid ahayd oo dhammaan tuulooyinka iyo gobolka aad isugu xilsaareen waxaan kaloo aad ugu mahadnaqayaa runtii la ismacaasiyo golaha deegaanka imka Oodweyne 16 bishii koobaad ee sanadkii tagay 2014 ayaa magaalada Oodweyne markii ugu horeysay laga furay dugsiga barashada caafimaadka waxaana munaasabadaasi lagu daahfurayay dugsiga barashada kalkaaliyaasha caafimaadka ama afka qalaad lagu dhaho nursing schoolka ay ka soo qayb galeen gudoomiye ku-xigeenka gobolka Daadmareed maayirka degmada Oodweyne xildhibaano iyo waliba shaqaalaha caafimaadka waxaan maanta halkan ka furnay markii ugu horeysay iskuul la magacaabay Oodweyne Health Academy ama akademiyada caafimaadka ee Oodweyne marka iskuulku isugu jira waxbarasho iyo shaqo geyn tan waxa uu ballan qaaday wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland iyo dawladda hoose ee gobolka Daadmareed marka oo inaynu caruurteena inta waaweyn aynu meel gelino si kuwayreyna ay u daba galaan ay ugu eegtaan ay real model u noqdaan dhalinyarada Oodweyne maanta weyn ognahay runtii weyn ognahay
ibraahim in badan baan ku baraarujiyey iminkana waan garab taagan horena fikirkan iyo hawl abuurkan maalin dhan iyo laba habeen runtii ayaanu laga sameyn karaa haddii aad shayga isku adkaysid wuu kugu adkaanaya haddii aad shayga isku fududaysana ilaahay la kaashiftina wuu kuu fududaanaya ilaahay waxaan ka baryaynaa uu noo fududaa hirgelintiisii idinkana inaad idiin fududaato barista iyo aqoonta halkan usoo doonateen doctor ibraahim aad baan ugu mahadnaqayaa aad baan maanta ugu jeersaday qofkii wax yaqaana lagama khasaaraba qofkii wax yaqaan isagu khasaaraba ma leh waa dhakhtarkii qurahaa ee xamiladoodini kuwii la shaqaynaya halka faa'iidaysan lahayn maanta hadday intay iyakuna xamilaan oo ay wax ka faa'iidaysta intuu jooga dhakhaatiir bay ku noqon lahaa 22 bishii koowaad ee sanadkii tagay 2014 ayaa wafdi ballaadhan uu hogaaminayo gudoomiyaha gobolka Daadmareer gaadheen degmada Xaaji Saalax oo waqtigaas ay ka socotay howlo wada bannayn taasi oo kor loogu qaadayo bilicda magaalada waxayna wafdidu halkaasi kulamo kula qaateen qaybaha kala duwan ee bulshada isagoo halkaasina wafdida warbixinta degmada uga jeediyay gudoomiyaha degmada Xaaji Saalax mudane Khadar Cabdi Oday degmada horumar fara badan ayaa inooga socda inkastoo horumarka ka socda uu deelada yahay oo uu magaranaysaa la socdo uun degmada awoodeeda iyo itaalkeeda haddana waddadii horumarka iyo dhabbihii horukaca waxaan isleeyahay anigoon is-ammaanayn oo aan degmada ammaanayn waxaan leeyahay way ku taagan tahay degmada Xaaji Saalax runtii horumarkan ballaaran ee uu ka dhawaajiyey gudoomiyaha degmadu iyo inta dhimanba waanu ku faraxsannahay warbixinta dheer oo uu ka bixiyey halkan waxaan na soo kalifay ee noo yimid warbixin fiican oo degmada ka socota horumar ka socda taas ayaa keentay inaanu annaguna si idiin nimaadno waanu joogaynaa halkan waanu idinla joogaynaa shaqooyin cusub baa ka bilaabmaya horumar baa ka soconaya degmada reer Xaaji Saalaxna bulshadeedu waa bulsho isku tashatay waa bulsho wax wada qabsanaysa waa bulsho jecel horumarka degmadooda annaguna markaas ay muuqanaysaa wax qabadkan la qabanaa oo ay horumar keenaysaa soddonkii bishii koowaad ee sanadkii tagay 2014 ayaa isduwaha ciyaaraha gobolka Daadmareer Khalid Axmed Xaaji si rasmi ah u daahfuray koob loogu magac daray daahfurka sanadka cusub iyo dardargelinta dhalinyarada isla markaana soconayay muddo bila maanta waxaanu qabsanay baadsalaan tartamaynu qabsanay 8 kooxood oo gobolka ay tartamayaan tartankan waxaan ugu magac darnay daahfurka sanadka cusub dhalinyarada gobolka Daadmareer iyo dardargelinta dhalinyarada tartankan ugu magac darnay tartankani waa tartan aan doonayno inay nagu soo baxaan ciyaartoy tayo leh oo kuwii hore sanadkii hore aan soo bandhignay ka wanaagsan ayaan doonaynaa inaan ka soo dhex saarno saddexdii bishii labaad ee sanadkii tagay 2014 ayaa munaasabad ballaadhan loo qabtay 20 arday oo markii ugu horeysay dhamaystay isla markaana ka qalin jabiyay xirfadaha gacanta oo kuwaasi oo bartay xirfado kala duwan sida leydhka samaynta baabuurta iyo waliba hagaajinta qalabka xafiisyada iyo biyaha waxaana munaasabadaasi ka soo qayb galay madaxda gobolka iyo degmada macallimiinta soo tababaray ardaydan iyo waliba bulshada qaybaheeda kala duwan waxa weeye halkan ardaydan halkan aad ku arkaysaan waxa weeye arday ay u bilaabantay maxaan ku raahdaa waxbarashadu meel wanaagsan ay imika taagan muddada yar ee maxaan ku raahdaa ay wax dhiganayeen dawladda iyo hay'adaha dhammaantoodba waxaanu ka codsanaynaa in loo sii kordhiyo qaar kale oo ka sii siyaadsan intaasna waa loo baahan yahay waxa weeye in farsamo gacmeed la helo waa lagama maarmaan waa ta koowaad tiiriguna waa la socdaa marka hore dhisaanka la sameeyaa waa aragteen marka dambana gacanta laga bilaabaa wixii inamadiina halkan fadhiya maanta ee qaybtii hore saa u dhammaystay maanta waxaa ku kalsoonaan kartaan gacantiina tahriibta waa kaga lumaysaan lagu leeday lagu dhammaaday oo inanka maanta ee halkaa ka qalin jabiyaa dee uma baahnaba minidkii walba shaqo helaya ardaydana waxaanu leenahay waxa weeye waa intaasoo looga sii dhawaadaa
naftiina iyo nafo kaleba waa anfacaysaan maanta waxaasaan ku dardaarmaya waan leeyahay halkaa ha isku dhiganina maanta makaanikalkii biyaha xagga technicalka biyihii wixii makanikal ahaa oo dhan hadday gaadiidka tahay hadday biyogelintii tahay hadday electriciankii tahay oo aan maanta cid leyr kale iyo meel kale haddii warshad kasta la keeno looga dalbanayn oo wax ilaahay loogu mahadnaqaa haddana ha isku dhiganin ee kuwii hindisiba lahaaya curin lahaaya abuuri lahaa warshadba inay noqotaan baan idiin rajaynayna runtii waxaa ii sharafa inaan kelmad ka idhaahdo xafladan ballaaran ee loo agaasimay dhallinyaradan qaybtii hore ee mechaanicalka electricityga iyo beeb filterkaba dhammaysatay taas oo runtii ah mid aad iyo aad annaga xaggeega qiimo weyn ka leh wax badanna ka tari doontaa horumarinta gobolka daadmareed afartii bishii labaad ee sanadkii tegay 2014 ayaa gudoomiyaha gobolka daadmareed xadhigga ka jaray xafiiska ururka dhallinyarada ee magaciisa loo soo gaabiyo Odhaswa kaasi ay madaxdani tilmaameen inuu ka shaqayn doono horumarinta magaalada sida waxbarashada biyaha iyo waliba nadaafadda haddaan nahay ururka Odhaswa Youth Organization runtii waxa naga go'an inaan horumarino gobolka waliba aan ku horumarino dhinaca waxbarashada nadaafadda biyaha iyo waliba markaan inta horumarino waxaan ku dadaalanaa inaan ku wacyigelino dadka oo aan u sheegnay in waxay haboon ay raacaan ee gobolku ka horumarayo haday tahay nadaafadda iyo haday tahay in ay bulshadu cabto biyo caafimaad qaba dumarka iyo xaafadahana waxaan ku wacyigelin doonaa meelaha aan ugu talagalnay xashiishka in ay ku qubaan oo aanay geenin goobaha biyaha ilaha biyuhu ay ka soo baxaan sida dooxyada iyo meelaha laga cabo maanta waxa farxad weyn loo dhalinyaro iyadoo aynu furayno gurigii maanta laga abaabulay dhalinyarada gobolka daadmareed ama degmadooda weyne ayaynu maanta furaynaa associationka ama ururka ka sameeyay halkan waxa weeye Odhaswa aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa dhalinyarada saas soo habaysay iyagu ee qaabkoodii soo samaystay qaab dhismoodkoodii maanta waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in dhalinyaradii gobolka ay ka kacday fadhigii oo ay u tafaxayatay sidii ay u horumarin lahayd gobolkooda nagala shaqayn lahayd aanu iskaashi ka yeelan lahayn horumarinta gobolka iyagoo qaban doona Odhaswa ururkan Odhaswa waxyaabo badan oo u baahnayn in laga gacan geysto oo iskaashi aanu ka samayno lixdii bishii labaad ee sanadkii tegay 2014 ayaa magaalada Oodweyne si rasmi ah loogaga dhawaaqay guddida wanaag farista iyo xumaan reebista gobolka daadmareed waxaana markii kulanka magacaabida guddida wanaag farista iyo xumaan reebistu soo dhamaaday halkaasi warbaahinta kula hadlay gudoomiyaha gobolka daadmareed iyo isuduwaha diinta iyo awqaafta ee gobolka daadmareed waxaan uga gol lahayn sidii loo samayn lahaa guddidii wanaag farista iyo xumaan reebista kadib markii aanu isuduwaha diinta iyo awqaafta aanu shir ballaaran ka galnay sidii aanu hawlahaas u horumarin lahayn ee aan ku soo xulnay odayaal badan waxaanu maanta halkan kaga dhawaaqnay guddidii wanaag farista iyo xumaan reebista gobolka daadmareed oo hawshoodiina ay toos maanta laga bilaabo ay u bilaabantay uu chairman uu yahay isuduwaha wasaaradda diinta iyo awqaafta waxyaalaha runtii aan ugu talagalnay in ay wax ka qaban doonaan haddii ilaahay ka dhigo way fara badan yihiin waxaa ka mid ah wax weeyaan runtii dhaqan xumada wax weeyaan ama faaxishada maxaan ku idhaahday khamriga oo runtii wax weeyaan la ararko gobolka ka jirjira wax weeyaan runtii dadkii oo diincaygii iyo waxyaalahaas isaga fududaadeen waxaa ka mid ah wax weeyaan filimada xunxun ee ciyaalku ay markaa daawadaan ee wax weeyaan lumiyey tobankii bishii labaad ee sanadkii tegay 2014 ayaa xildhibaanada golaha deegaanka tababar uga furmay howlka dawladda hoose kaasi oo ay maalgelinaysay hay'adda UN Habitat isla markaana uu fulinayay macadka tababarka shaqaalaha waxa sidoo kale furitaanka tababarkaasi goobjoog ka ahayd Suleekha Cali Imaan oo ka socotay wasaaradda arrimaha gudaha iyo waliba maamulka gobolka iyo degmada 12 bishii labaad ee sanadkii tegay 2014 ayaa maamulka gobolka daadmareed shahaado sharafeed ku maamuuseen madaxa hay'adda bisha cas ee gobolka Togdheer Dr. Cabdi Cawil kaasoo ay mas'uuliyiintu sheegeen inuu kaalin mugle ka geystay kor u qaadida caafimaadka gobolka waxaana halkaasi shahaado sharafeedaasi ku guddoonsiiyay Suldaan Maxamed Xirsiqani gudoomiye ku soo dhawow gobolka daadmareed iyo bulshadiisa ku guddoonsiinaysa shahaado sharaf
bisha casad wakiil ka tahay. intaasi kadib waxay mas'uuliyiintu si wada jir ah xadhiga uga jareen xarunta hooyada iyo dhallaanka taasi oo dib u habayn ballaaran lagu sameeyey kadib waxyeello uu gaadhsiiyey dab ka kacay gudaha xaruntaasi. xaruntaaynu joogno sida aynu wada ognahay waxay ahaan jirtay xaruntii hore u jeedi jirtay ee gobolka waxaase dhacday beri dambe oo bishii 7-8 ee sanadkan in dabaqabsado dhibad ku dhacay dabeedna ay burburtay dib u habeyn baa lagu sameeyey ayadoo looga dan leeyahay in sideedii lagu celiyo ilaahay fadligiisa maanta waa arkaysaa dabkii maanta qabsay maanta way ka wanaagsan tahay inaynu furnaa baynu diyaarnahay waxa kaloo heliyo inaanu maanta diyaarnayn la furo goobtii la wanseeyay shaybaarka oo iyadana aynu inta ayna furin dabkan qabsaday oo ayna diyaaro halka shaybaarka oo wax walba ka qaalisan oo ka xanuunada lagu baareeyay wax walba markii hore lagu ogaado oo asaguna nasiibkeena maanta inoo hirgalay 28 bishii labaad ee sanadkii tagay 2014 ayaa bahda waxbarashada gobolka Daadmareer soo dhaweyn u sameeyeen arday ka soo qalin jabisay jaamacadda Camuud taasi oo hore uga baxday dugsiga Oodweyne isla markaana waqtigaasi loo soo tababaray inay macallimiin ka noqdaan dugsiyada Oodweyne. xadeeda ugu weyn in maanta hablihii ugu horeeyay qaybta ugu horeysay hablaha ee jaamacadda Camuud nooga soo qalin jabiyay ee ka dhiga dugsiyada sare ay noo yimaadaan oo halkan ay noogu yimaadeen inkastoo ay waqti yar gaaban u harsan yahay haddana internshipka halkan ku sameeyeen oo ay nala shaqeeyeen oo ay dugsiyada wax ka dhigaan imika sida xaqiiqdii waxaad moodaa waxbarashada gobolkan imika in isbedel weyn uu ku jiro waxa marka hore dhinaanshiya koowaad ahaa hablaha oo aan jirin oo aan hablaha macallimiinta aan ugu badnayn imika tiraba habla dooraya noo soo kordhay oo macallimiina amaal سعيد محمد oo ah ardaydii ka baxday dugsiga sare ahaydna ardaydii aadka u fiicnayd kaalmaha ugu sarreeyna ka gashay imtixaanaadkii qaaday dugsiga oo ah ardayda aan u dirsanay jaamacadda Camuud imikana aan soo tababarnay macallimad oo aad iyo aad aan ugu farxnay ahna intii koobaad ee heer jaamacadeed ee dugsiga sare ka shaqeysa 12 bishii saddexaad ee sanadkii tagay 2014 ayaa gudoomiyaha gobolka Daadmareer degmada Xaaji Saalax kula wareegay nin gacan ku dhiigla kaasi oo la sheegay inuu nin ku dilay tuulada Barcad oo ka tirsan gobolka Daadmareer isla markaana waqtigaasi laga soo qabtay deegaanada dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya kaasi ay soo qabashadiisa iska kaashadeen maamulka gobolka Salaadiin Cuqaal iyo waliba mas'uuliyiinta dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya 12 bishii saddexaad ee sanadkii tagay 2014 ayaa madaxa samafalka gobolka Daadmareer Dayib Ismaaciil Cagaf iyo Saada Faarax Bulbul oo ka socotay qurbo joogta gobolka Daadmareer deeq lacageed oo dhan $1,650 Mareykanka ah u qaybiyeen dad danyar ah oo ku dhaqan qaar ka mid ah xaafadaha magaalada Oodweyne deeqdaasi lacageed oo ay ku soo tabaruceen hablo muslimiin oo ku dhaqan wadamada London iyo Bristol isla markaana u soo wakiishay Saada Faarax Bulbul waxayna lacagtaasi gaarsiiyeen ilaa 30 qof oo danyar isla markaana isugu jira dad waaweyn oo aan lahayn wax u badaho u adeega dad curyaamiin iyo waliba dadka aan xuskoodu dhamayn 20 bishii saddexaad ee sanadkii tagay 2014 ayaa qaar ka mid ah madaxda iyo gudoomiyaasha tuulooyinka hoos yimaada gobolka Daadmareer ayaa si rasmi ah u taageeray safarka madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland taasi oo waqtigaasi ku marayay qaar ka mid ah gobolada dalka waxayna madaxdan iyo waxgaradkani tilmaameen inuu yahay mid taariikhi ah isla markaana ay ku hambalyeynayaan gudoomiyaha gobolka Daadmareer ayaa isaguna dhankiisa isla maalintaasi hambalyo taala mid ah u diray madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland isla markaana guul ku tilmaamay safarka uu ku marayo qaar ka mid ah gobolada Somaliland oo salaamaya madaxweynaha Somaliland Maxamed Silaanyo waftida ballaaran oo ku soo maray gobolada dalka ilaa Ceerigaabo ilaa Maydh ilaa Lughaya kormeerka uu ku soo maray waxaan aad iyo aad ugu soo hambalyeynaya waa salaamaya madaxweynaha hambalya ma leh waxaan leeyahay wadooyinku waa isku mid hadday Ceerigaabo tahay hadday Oodweyne tahay hadday Lughaya tahay wadooyinka ballaaran iyo horumarinta fiican ee madaxweynuhu intii dalka uu xukumayay ka dhaadhiciyay wadanka ama wadooyinka uu ka furay waa soo dhaweynayna aad iyo aadna waa u salaamaya waxaan halkan taageero ballaaran iyo hambalyo la garab taaganahay madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland safarkan uu ugu baxay wadooyinka waxaanu leenahay haddii aanu nahay hay'adda gobolka Daadmareer
hambalyo 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 waxa horumarka waddanka ee uu hore u mariyey iyo muwaadinimada darteed baanu ku salaamaynaa salaanta islaamka assalaamu calaykum madaxweyne waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan leeyahay annagoo sii wadid annagu waanu la barbar taaganahay taageero af iyo addinba hadday waddo tahay hadday dhismo guud tahay hadday ma garanaysaa ee doorashada oo loogu celiyo tahay annaguna waan ku taageersanay haddaan nahay maamulayaasha tuulooyinka iyo gobolka ee kaleba runtiina waanu farxad iyo waxtarba waa la barbar taaganahay waddooyinka madaxweynuhu waddanka badidooda ka soo qabtay mid waliba qolo jecesha intooda la yar dhaqaajiyan runtii reerwadweyne ahaan aanu jecelahay inta iyaduna yar muuqato laakiin waa isku mid waddooyinku taasa inuga fog taa marka runtii la soo dhammeeyo annaguna insha allah waxaanu jeclay inaanu ku xigno madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan waxaanu leenahay safarkiisa waanu ku hambalyeelaynaa aadna waanu u soo dhoweynaynaa haddaanu nahay haydharhka tuulooyinka madaxweynaha iyo wafdigu la socdo waxaanu ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu madaxweyne waxaan leeyahay safarkaaga ilaahay ku hawl yareeyo marka hore madaxweyne waxaan ku leenahay hambalyo hambalyo waxaan halkan ka salaamayaa madaxweynaha somalilan axmed maxamed siilaayo waxaan ku salaamayaa ilaa iyo maalintan ciyaalaha wuxuu baa loolan jiray waddaa loo samaynaya somalilan wuxuu sameeyey intiiba madaxweynaha ilaa iyo siyaad kaga bilow may jirin maanta ayuu u sameeyey madaxweynaheena axmed maxamuud siilaayo waxaan u dirayaa hambalyo waxaan leeyahay ilaahay xilka ha kuu fududeeyo ha kula adkeeyo annagana madaxweyne sidaa aad ceerigaaba awoodda u saartay haddaadna gobolka daadmadheer waxaanu doonnaa inaad awoodda noo saarto oo aad noo samayso waddada noo samaysta inaad noo dhammaystirto waxaan doonnaa waxaanu raaci jirnay iskarago annagoo siigalaanu iman jirnay imaka intaa yar la sameeyey noohooyin iyo tagaasi baanu ku tagnaa magaalada qabadka guud ee ka socda jamhuuriyadda somalilan ee ah waddooyinka iyo kormeerkii ballaadhnaa ee uu kuurgelayey bulshada gobolladaas qayb ka mida jamhuuriyadda somalilan ay ku eedan tahay iyo waxay ku nooshahay taas oo ah waajib muqadas ah oo saaran madaxweynaha inuu ka warhayo bulshadiisa halkanna hayrtuule ee isugu yimid waxay si mug leh hambalyo iyo bogaadin ugu direen madaxweynahooda jamhuuriyadda somalilan axmed maxamed siilaayo oo ay leeyihiin halkaa ka sii wad madaxweyne waanu ku barbar taagannahay annaguna diyaar baan la nahay gacantii gobolkayaga kaga aadanayd waddada inaannu diyaarinno 23 bishii saddexaad ee sanadkii tegay 2014 ayaa maamulka gobolka Daadmareer iyo madaxda booliiska ee gobolka Shirjarayd oo ay si wada jir ah u qabteen kaga waramay nin gacan ku dhigla oo ay gacanta ku soo dhigeen ciidamada booliiska gobolka Daadmareer kadib markii uu deegaanka Qargibilo duleedka bari kaga beegan magaalada Oodweyne ka geystay dil toogasho ah 24 bishii saddexaad ee sanadkii tegay 2014 ayaa kulan ay wada qaateen maamulka gobolka Daadmareer iyo wafdi ka socday maxkamadda racfaanka ee gobolka Togdheer isla markaana ay ka soo qayb galeen madaxda laamaha dawladda ee gobolka ayaa looga gol lahaa isla markaana lagu gorfeeyay sidii maxkamadda degmada Oodweyne looga dhigi lahaa heer gobol si ay aadeen loo helo maxkamad heer gobol ah isla markaana xukunta dacwadaha ka facaweyn maxkamadda degmada jooga gudoomiyihii maxkamadda rafcaanka gobolka Togdheer oo u kuurgelaya habsami u socodka hawsha maxkamadaha wuxuuna ku saabsan yahay kulankeenu sidii gobolkan loo horumarin lahaa maxkamadiisana looga dhigi lahaa gobol degmo isla markaasna ilaha dakhliga kor loogu qaadi lahaa taas oo loogu gol leeyahay in heer gobol in lagu qaado in dacwadaha heer degmo kuma filla dacwadaha gobolka Daadmareer waxaanu samaynaynaa halka kan bisha laga bilaabo wixii ka hadhay waxaan doonaynaa in laga diiwaan geliyo dacwooyinka heer gobol la ururiyo kabacdi aan u soo diro garsoorkii inta garsoor gobol degmo Daadmareer la helayo inaanu annagu voluntary muxuu ahaay ugu soo diro bil walba hal mar markay dacwaduhu ururaan garsoorayaal ku qaada maxkamadda gobolka halka kan sidaas la eg wixii racfaan laga qaato in maxkamadda racfaanku ay halka kan ku qaado iyaduna racfaanka ku dhageysato xukunnadana ku soo saarto
25 bishii saddexaad ee sanadkii tagay 2014 ayaa munaasabad ballaaran oo ay soo qaban qaabiyeen ardayda dugsiga sare ee Oodweyne Secondary School isla markaana ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiinta gobolka iyo waxbarashada qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka gudiyada waxbarashada iyo waalidiinta ayaa waxay ardaydu shahaado sharafeed iyo ku maamuusay wasiirka wasaaradda waxbarashada Jamhuuriyadda Soomaaliland Marwo Samsam Cabdi Aadan iyo waliba Cabdi Soofi Cali oo ka mid ah qurba joogta reer Soomaaliland ee gacanta ka geystay waxbarashada gobolka Daadmareed iyagoo ardaydani tilmaamay inay wasiiradda waxbarashada iyo xubnaha qurba joogta ahiba kaalin muuqata ka soo qaateen tayeynta iyo kor u qaadida heerka waxbarasho ee gobolka xafladan oo magaceedu yahay oo mahadnaqa wasiirka wasaaradda waxbarashada guddoonsiinana ardayduna ay guddoonsiiso shahaado sharaf taas oo ay ku mutaysatay waxqabadka ballaaran ay ka qabatay gobolka Daadmareed runtii Marwada Cabdi Aadan shahaadada maanta anigu waxaan wax ka sii qaalisan baan haynaa maanta hadii nala joogi lahayd runtii hal dhashay baan ugu siin lahaa laakiin waa waxaan leenahay wasiir annaguna waan kugu hambalyeynaa waxaan ku leenahay hambalyo ku soo dhawo wixii aad noo qabatay oo mahadnaqoodi ku laabayno kuna soo dhawo waxa noo dhiman sida jaamacadda oo kale oo aad noo timaado oo aad noo dhagax dhigto ku soo dhawo mayu ilmiina maanta inuu garto uu raacdo waxa ay si ka bedelay inaad ka mahadnaqdaawi wasiirka wasaaradda waxbarashada reer Oodweyne inaan beesi sheegay intii waddanka la soo galay waddanka la xoreeyay waa wasiirkii ugu dhagan nuglaa Oodweyne ardayda iyo macallimiinta inay ku maamusaan waxqabadka ballaaran ee ay ka fulisay gobolkeena Daadmareed runtii in wasaaradda koowaad ee shaqadeedu sida tooska ah uga socoto 28 bishii saddexaad ee sanadkii tagay 2014 ayaa wasiir ku-xigeenka ganacsiga Jamhuuriyadda Soomaaliland Bashiir Cabdi Xariir ka qayb galay shir lagu soo afjarayay khilaaf daba dheeraaday muddo soo jiitamayay isla markaana u dhaxeeyay laba beelood oo wada deegaanka Laan Mulaaxo kaasi oo sababay dilka Allah u naxariistay taliyihii saldhigga degmada Xaaji Saalax Hurre Sahal Ducaale waxaana daminta khilaafkan iyo isu soo dhaweynta labadan beelood ee walaalaha ah soo gabagabeeyay erga ballaaran oo ka kala timi beelaha deegaanadaasi kuwaasi oo hormuud u ahaa Suldaan Maxamed Xirsiqani xildhibaano ka socday labada gole ee wakiilada iyo guurtida maamulka gobolka ka degmada Cuqaal Salaadiin iyo waliba ciidamada booliiska iyo RRU-da waxaynu halkan u fadhinaa inaynu hawl dheer oo dhacda oo isdaba taalay oo mid qulo xaqi aanay ku jirin xaqdarro midhana inaynu ilaahayna cafi ka weydiisano inuu inaga saamaxo inaguna ku kala bogsano oo halaad oo dhogora 40 halaad oo lacag hashiiba tahay 200 oo dollar isu goyn 800 dollar 120 milyan oo ganaax oo shilin Soomaaliland lacagta gadabka ama boonka oo 30 oo dollar dhinaca beesha Cali Xidamar Heer Xasan waxa laga doonayaa 100 halaad oo dhogor ah 20 halaad oo lacag hashiiba tahay 200 oo dollar isu goyn 400 oo 4 ganaax tan 60 milyan oo shilin Soomaaliland muddada lagu bixinayo dhammaan lacagta oo dhan waxa lagu bixinayaa 15 casho gudahood oo ka bilaabanta marka lagu dhawaaqo go'aanka geela dhogorta waxa lagu bixinayaa 2 bilood oo ka bilaabanta marka go'aanka lagu dhawaaqo runtii waa go'aan dhaxalgal ah oo qiimo leh oo taariikhiya go'aanka halka ka soo baxay oo horseed ka noqon doona insha Allah ta'ala nabadeyn guud oo ka dhacda in beelaha khilaafka soo jiitamay uu ka dhacay ummadii markay isu timaadeen meel isugu timaado wixii ay go'aansatay islaax ay ku go'aansato cidii maamulka joogtaana waxay ku khasbantay ama sharcigu dhigaya ka iyagu ay ku heshiiyeen in la hirgeliyo haddana xukuumad ahaan nahay maanta waajibka nasaaran waxa weeye waxa la xukumay ee ay odayaashiini xukumeen ee madax dhaqameedkiini xukumeen fulintiisa inaanu idinkala qayb galno oo la fuliyo oo maanta ma joogo waxaan ma qaadateena waxa jooga wixii la qaatay muddadii lagu qaatay in lagu fuliyo kowdii bishii afraad ee sanadkii tagay 2014 ayaa dadweynaha ku dhaqan magaalada Oodweyne xarunta gobolka Daadmareed cabasho xoogan ka muujiyeen biyo la'aan baahsan oo waqtigaasi soo food saartay taasoo ay sheegeen inay booyaduhu uga soo dhaamiyaan magaalada Burco oo ilaa 50 kiiloomitir u jirta waxaana waqtigaasi oo lagu jiray xilliga jilaalka dadweynuhu sheegeen inay ceelashii qodaalka ahaa ee ay hore biyaha uga heli jireen ay waqtigaasi noqdeen kuwa aan biyo lahayn maadaama ay yaadeen aanay magaaladu lahayn wax
ceel ah ama riigbiyooda isla markaana daboola baahiyaha bulshada maadaama ay biyuhu yihiin baahiyaha asaasiga ama tiirka ugu muhiimsan ee saamaynta ku yeesha nolosha bulshada ooli weeradi dadkii jirkaamadii caagadii buu uga weeraysan moosahay waa dadka lagu qarinaya mudana madaxweyne waxaan ka codsanayna haddaan nahay golaha deegaanka ama bulshada ku nool gobolka daadmareed riig degdega inuu guula lala soo gaaro mudana madaxweyne inta ceelka isugu maraysa oo arkaan habeennimada wixii gaadhana يجوا نقابات أوصل البيت وخارج البيعة وعاد الله فراش إنه يجوا ديسان العام وكلنا إلا يدوروا جملسوا قعدوا يجا هيجيني سكوا والله لا سجارة degmadoodu inanka qodaan maray waxa istibiiraan aad baan u raadanahay meel ceelka dawladda ka hirnaa carruurtu waa nala surmi marka dawladda waxaan ku codsanaynaa inay biyo noo keenaan marka waxaan u baahanahay baahida biyood ee jirta ee xaqiiqada ah ee dhabta ah ee biyo dhaanku hadda uu ka jiro oodweyne gudihiisa oo looga soo dhaaminayo burcaya kaba dheer in wixii laga qaban karo oo degdeg ah in laga qabto baan u baahanahay dadweynaha bulshada inta laga waxba ka tarmaayo ceel yar oo meersa badan lagu buro iyo dhaam tuulo loo xidha waxay u baahan tahay ceelal riigag ah oo lagu nasto oo shaqeeya oo degdeg ah loo baahan yahay waxa aragtaan dadkan ceelka sida ay ugu buuxsan yihiin waxa weeyaan biyo la'aan ka dhacday oodeyne ceel inta loo yaro furay weeyaan waliba inta la furay hadhow markuu yar joogo dadku way isku leenayaan oo ceelka sidaas oo kale way isku laayaan ilaa waxay istubaan istiri dheer iyo fiilo dheer bay u galaan saddexdii bishii afraad ee sanadkii tegay 2014 ayaa dadweynaha ku dhaqan magaalada Oodweyne ee xarunta gobolka Daadmareed si diiran u soo dhaweeyeen isla markaana hambalyo u direen aqoonsigii golaha deegaanka magaalada Shafiil ee Cariga Ingiriiska u muujiyeen Jamhuuriyadda Soomaaliland oo intiisii hore bilaamay waxaanu aad ugu rajaynaynaa gobolada kale ama Yurubta kale ama dawladaha kale ee caalamka iyaguna inay ku daydaan tallaabada geesinimada leh maadaama uu maanta muuqdo ictiraafkii Soomaaliland golaha deegaanka ee Shafiil ee ku dhawaaqay goonisitaanka Soomaaliland aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa waxaan leenahay markaa isha muuqata waa aqoonsigii Soomaaliland aad iyo aad u soo dhaweynaa farxad weyn oo dalka u soo hoyatay guul dalka u soo hoyatay oo halkan maanta ka hambalyeynayno isla 8 bishii afraad ee sanadkii tegay 2014 ayaa isduwaha wasaaradda ciyaaraha iyo dhalinyarada ee gobolka Daadmareed koob u dhigay laba kooxood oo kamid ah kooxaha heerka koobaad ee gobolka Daadmareed kaasi oo sheegay inuu ugu magac daray ama ku soo dhaweynayaan aqoonsiga ay Soomaaliland ka heshay golaha deegaanka ee Shafiil iyadoo dhalinyarada ciyaartoyda ahina halkaasi shahaado sharafeed ku maamuuseen isduwaha ciyaaraha iyo waliba xildhibaan Xaaji Saliim Cali Ducaale oo ka tirsan golaha guurtida Jamhuuriyadda Soomaaliland isla markaana kamid ah shakhsiyaadka gacanta weyn ka geysta dardargelinta ciyaaraha gobolka 22 bishii afraad ee sanadkii tegay 2014 ayaa maayirka degmada Oodweyne Cabdixakiin Nuur Muuse tulada dabagoroyaal oo kamid ah deegaanada uu maro xadka gobolkan la leeyahay Itoobiya si rasmi ah uga dhagax dhigay xarun caafimaad oo ay yeelanayso tuladaasi isla markaana ay hirgelinayaan golaha deegaanka ee degmada Oodweyne 23 bishii afraad ee sanadkii tegay 2014 ayaa munaasabad ballaaran oo xilka loogu kala wareejinayay maamulkii hore ee cisbitaalka Oodweyne iyo maamulka cusub ee wasaaradda caafimaadka u soo magacowday cisbitaalkaasi ayay goobjoog ka ahaayeen maamulka gobolka maamulka degmada madaxda booliiska shaqaalaha caafimaadka iyo waliba bulshada qaybaheeda kala duwan waxaana halkaasi laga soo jeediyay hadallo soo dhaweyn iyo sagootin isugu jira iyagoo dhammaanba madaxdu maamulkii hore ku ammaanay shaqada wacan ay ka soo qabteen cisbitaalka guud ee magaalada Oodweyne iyo heerka muuqda ay soo gaarsiiyeen waxay sidoo kale maamulka cusubna ku booriyeen inay halkaasi ka sii anba qaadaan hawlaha caafimaad ee gobolka
26 bishii afraad ee sanadkii tegay 2014 ayaa agaasimaha dawladaha hoose ee wasaaradda arrimaha gudaha ka qayb galay munaasabad ay dawladda hoose ee degmada Oodweyne ku shaacinaysay mashaariic horumarineed oo ay ka fulinayso gudaha degmada Oodweyne taasi oo u soo tartameen qandaraaslayaal tiro badan munaasabadaasi oo ay ka soo qayb galeen xubno ka socday wasaaradda arrimaha gudaha barasaab ku-xigeenka gobolka Daadmareer maamulka dawladda hoose iyo waliba xubnaha u tartamayay ku guuleysashada fulinta mashaariicdan iyo waliba gudida iyadu qiimeynaysa codsiyada tartamayaasha isla 26 bishii Abriil ee sanadkii tegay 2014 ayaa dadweynaha ku dhaqan magaalada Oodweyne u dareereen tukashada salaad roobdoon iyadoo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland waqtigaasi shacabka ugu baaqay inay u dareeraan allabari iyo roobdoon ayaa guud ahaanba dalka Soomaaliland looga dareeray tukashada labada ragcadood ee roobdoonta waxayna dadweynaha reer Oodweyne oo salaadaasi ku tukaday dooxa weyn ee Shimbireley tukashada salaada iyo ducada kala qayb galay maamulka gobolka iyo degmada laamaha waxayna madaxda iyo shuyuukhdu halkaasi ka jeediyeen ducooyin ay Ilaahay kaga dalbanayeen inuu abaaraha ka saaro isla markaana raxmaadkiisa u soo dedejiyo 11 bishii shanaad ee sanadkii tegay 2014 ayaa dadweynaha ku dhaqan magaalada Oodweyne xarunta gobolka Daadmareer cod dheer ku taageereen musharaxnimada madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo ee 5 sano ee soo socota taasi oo shaaciyay wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta mudane Cabdullaahi Maxamed Daahir Cukuse waxayna dadweynaha magaalada Oodweyne madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ku sifeeyeen madaxweyne ku tilmaaman waxqabad iyo horumarinta dalka isla markaana ay mar labaad ugu celin doonaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo isu sharaxitaanka dambe uu sharaxayo 5 sano dambe dalka waan taageersanahay waxaan u taageersanahay waxa weeyaan waxa qabad ku qabtay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland intaba wuxuu ahaa nin ku fakira oo ku riyooda had iyo goor horumarka waddanka in wax qabad iyo inuu taabsiyo waddanka wax qabasho oo mujtamaciisa uu horumariyo qof ku fakiruha waxaan xambaliyo uga darayaa madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo oo shaaciyay in uu 5 sano dambe u sharaxan yahay waxaan leeyahay madaxweyne aad iyo aad baan kugu hambalyeynaa waana kugu taageersanay mar kastaba lama filaana loo dooran doono ama anagu ama waddanka oo dhami oo ma garanaysaayeen uu gacan buuxda ku siin doono si uu u dhameystiro hawlihiisa 180 oo qabtay 18 bishii shanaad ee sanadkii tegay 2014 waa maalinta loo aasteeyay munaasabadda sanad guurada 23aad ee 18 May oo ku beegan markii ay Soomaaliland xornimadeeda kala soo noqotay dalkii la isku oran jiray Soomaaliya waxayna dadweynaha reer Oodweyne maalintaasi isugu soo baxeen dabaaldeg ballaaran oo ay ku muujinayaan shucuurtooda iyo dareenkooda wadaniyadeed xaafadaha ay magaaladu ka kooban tahay ayaa isu soo abaabulay si aan hore loo arag wasaaradaha dhammaanba shaqaalaha dawladda ururada dhalinyarada ururada haweenka xildhibaanada golaha deegaanka iyo dhammaanba shacabweynaha degmada Oodweyne ayaa koox u maray shaaracyada waaweyn ee magaalada iyagoo ku labisnaa calanka Soomaaliland isla markaana ku dhawaaqayay erayo ay ku dalbanayaan in la ictiraafo Jamhuuriyadda Soomaaliland oo waqtigaasi 23 jirsatay ciidamada booliska Bamboyda iyo asluubta ayaa iyaguna halkaasi ku soo bandhigay arbis iyo gaadaka ciyaar ay ugu dabaaldegayaan maalinta qarannimada Jamhuuriyadda Soomaaliland ee 18 May waxayna socod dheer kadib halkaasi ciidamadu salaan sharaf ku siiyeen wasiir ku-xigeenka ganacsiga Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Bashiir Cabdi Xariir oo bulshada gobolka Daadmareer maalintaasi kala qayb galay xuska munaasabadda 18 May waxaana sidoo kale waxyaabaha munaasabadda 18 May ay sanadkan kaga duwaneed gobolka Daadmareer sanadihii hore ka mid ahaa kooxaha naqad baan iyo Odhaswa oo iyagoo halkaasi ku soo bandhigay heeso iyo ciyaaro dhaqameedyo ay ku soo dhaweynayaan 18 May iyo waliba heeso u gaar ah isla markaana ay ku ammaanayaan gobolka Daadmareer 21 bishii shanaad ee sanadkii tegay 2014 ayaa maareeyaha guud ee hay'adda horumarinta wadooyinka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wasiir ku-xigeenka ganacsigu ka qayb galeen munaasabad ballaaran oo dib loogu furayay dhismaha wadada isku xidhaysa magaalooyinka Burco Oodweyne iyo Hargeysa taasi oo maalintaasi si rasmi ah loogu bilaabay qalab iyo gaadiid ay keentay xukuumadda Soomaaliland ee uu garwadeenka ka yahay Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo waxa sidoo kale munaasabadaasi iyaguna goobjoog ka ahaa maayirada Oodweyne iyo Burco gudoomiyaha gobolka Daadmareer cuqaal ganacsato iyo waliba xubnaha gudida wadadaasi ilaahay baa mahad leh
oo saaka inoo qadaray inaynu halkan isugu wada nimaadno innagoo u soconno dan caama waddadii isku xidhaysay Burco iyo Hargeysa oo hawl badan laga soo qabtay markii hore odayaashii guddida horumarinta ee gobolka Togdheer iyo xukuumadda oo iskaashanaya ay hawl muuqata ka qabteen hadda waxay maraysaa tuulada Ceegbilcille waxa saaka aynu qorsheynay oo xukuumaddu ay diyaarisay sidii waddadii halkaa looga bilaabi lahaa oo muciidaadkii iyo iskarogooyinkii iyo qalabkii oo dhan loo keenay muddo hawshu way fadhiday waynu tabaabushaysayna hawlna way farabadnaayeen waxaan markaa anigu halkan runtii leeyahay muwaadiniinta reer Somaliland iyo cid kastoo muxsiniin oo wax ku taraysaba waddadii waynu bilownay qalabkii waynu u keenay insha Allah taala joogsan mayso xukuumaddana waxa ka go'an waddada sida ay ku bilowday inay ku dhamayso cid walba inay ka soo qayb gasho ay gacan ka geysato nin walba wuxuu ku bixin karaa inuu ku bixiyo marka labaad waa arkaysaan saaka runtii waa farxad gaar ah hadday tahay dadweynaha reer Togdheer iyo reer Daadmareer oo runtii aan maanta bartankooda joogno farxad bay tahay runtii farxad weyn in dariiqii isku xidhayay Burco Hargeysa maanta halkaa taagan yahay oo xukuumaddii iyo shacabkii hawshoodii halkaa aad arkaysaan ay taagan tahay maanta wax lagu farxo weeye anigoo ku hadlaya magaca wakaaladda horumarinta waddooyinka Somaliland waxaa naga go'an runtii inaan wax alla wixii la karayo ee imkaaniyaada inaan la ag joogsanno waddadaas sida u fuli lahayd sidii ay u socon lahayd waa arkaysaan qalabka yaalla wakaaladdu ay leedahay sida cagafyada iyo shaqaalaha iyo injineerada jooga intaba iyo iskarogooyinka jooga waxa weeye wax lagu faano weeye runtii way naga go'an tahay arrintaasi waxaan ugu baaqayaa markaa dadweynaha gobolladani ku nool ee waddadan ay dhex marayso ee iyagu dadkoo dhan bay ka dhaxaysaa waddadu sida gaarka uga faa'iidaysan doona waxaan ugu baaqayaa runtii inay gacan weyn ka geystaan aniga kolley shakhsi ahaan maaha waddadii ugu horraysay saddex taago waddooyin badan oo horaan soo dhex taagay wayna wada dhammaadeen 29 bishii shanaad ee sanadkii tegay 2014 ayaa magaalada Oodweyne si weyn loogu soo dhaweeyay xubno ka mid ah jaaliyadda reer Somaliland ee ku dhaqan magaalada Sheffield ee Cariga Ingiriiska oo kuwaasi oo door laxaad leh ka soo qaatay ictiraaf raadinta Jamhuuriyadda Somaliland waxaana xubnahaasi soo dhaweyn kadib ay kulan la qaateen maamulka gobolka ka degmada iyo bulshada qaybaheeda kala duwan waxa sidoo kale xubnahaasi jaaliyadda ah iyo maamulka gobolka iyo degmadu isla maalintaasi si wada jira gudaha magaalada Oodweyne uga dhagax dhigeen waddo laami oo dhex maraysa gudaha magaalada taasi oo loogu wanqalay Sheffield Road labadii bishii lixaad ee sanadkii tegay 2014 ayaa golaha deegaanka degmada Oodweyne kalfadhi aan caadi ahayn oo isugu yimaadeen kaga doodeen isla markaana ku ansixiyeen laba qodob kuwaasi oo kala ahaa xeer nidaamyaha shaqaalaha dawladda hoose iyo dhismaha xarumo caafimaad oo ay goluhu ka dhisayeen deegaano ka mid ah gobolka Daadmareed kalfadhigan oo shir gudoominayay maayirka degmada Oodweyne Cabdixakiin Nuur Muuse isla markaana ay goobjoog ka ahaayeen badiba xildhibaanada golaha deegaanka waxaana halkaasi ajandaha kalfadhiga xildhibaanada ugu qaybiyay xogayaha dawladda hoose Axmed Maxamed Yuusuf afartii bishii lixaad ee sanadkii tegay 2014 ayaa munaasabad ballaaran oo lagu qabtay gudaha magaalada Oodweyne dadweynaha ku dhaqan magaalada Oodweyne ku taageereen musharaxnimada 5 sano ee soo socota madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaayo munaasabadan oo ahayd mid kulmisay xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka ururada haweenka ururada dhalinyarada abwaano iyo waxgarad tiro badan waxayna halkaasi dareen midaysan iyo suugaanba ku taageereen waxqabadka muuqda ee xukuumadda haatan talada haysa dalka ka hirgelisay intii ay talada haysay oo aanu ku taageerayno nabadgelyada dalka si aanu u taageero musharaxa madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Silaayo waxaan u soo gudbinaynaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland waxaanu mahad ugu soo gudbinaynaa halka Somaliland waxa soo maray madaxweynayaal badan la wada yaqaano wuxuu kaga mudan yahay uu kaga mahadsan yahay waxqabadka Somaliland war siyaasad ku baahiya aan been ku hadlaynin balaqaadkii kulmiyu buugaagtiisa ku sheegay ayaan taabanay wasaaradii bakhtiye buugaagtooda la laabay ee nimaan beesad lahayn bowladaha ka guurayay mushaar ruux ku bannaan inuu baanka ka siiyo kulmiyaa ballan qaaday bartaasoo ma dhammaynin ciidanka baalaha jooga bilyanaad kor u dhaafay iyo bilayska oo gudihii ah mushaar ruux ku bannaan inuu baanka ka siiyo kulmiyaa ballan qaaday bartaasoo ma dhammayn
qarashkii lacageed iyo beesadaa wax jarayna kulmiyaa bedele bartaasoo ma dhammaynin jidadkaa la ballaashay kulmiyaa ballan qaaday bartaasoo ma dhammaynin shantii bishii lixaad ee sanadkii tegay 2014 ayaa munaasabad lagu xuseeyay maalinta deegaanka adduunka oo loo asteeyay 5 bisha lixaad lagu qabtay gudaha magaalada Oodweyne taasi oo isu wada jir u soo qaban qaabiyeen wasaaradda deegaanka iyo hay'adda wadaniga ah ee ADO waxaana ka soo qayb galay maamulka gobolka Daadmareer ka degmada Oodweyne ee suduwaha wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga mas'uuliyiin ka socday hay'adda ADO iyadoo munaasabadaasi lagu xuseeyay maalinta deegaanka kaga qayb qaadatay ilaa oo dhir ah kuwaas ay u qaybiyeen meelo kala duwan toddobadii bishii lixaad ee sanadkii tegay 2014 ayaa isduwaha wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga ee gobolka Daadmareer qayladhaan ka muujiyay ayax ku habsaday tuulada Xaaxe oo ka tirsan gobolka Daadmareer isla markaana ka mid ah deegaanada beeralayda taasi oo cayayaankan ayaxu sida roobka u hadheeyay waxaana isduwuhu baaq u diray wasaaradaha iyo hay'adaha ay qusayso arrintani iyadoo ay goobtaasi sidoo kale ku sugnaayeen mas'uuliyiin ka tirsan hay'adda wadaniga ah ee ADO oo iyadu dadweynaha ka caawisa xagga beerashada casriga waxayna mas'uuliyiintani ka warrameen ayaxan iyo waxyeelada uu geysan karo beeraha sagaalkii bishii lixaad ee sanadkii tegay 2014 ayaa isduwaha wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga ee gobolka Daadmareer Cabdiqaadir Odawa Xaaji Abakor oo weelinaya taliye ku-xigeenka qaybta booliiska gobolka Daadmareer kormeer ay ku soo mareen deegaano ka mid ah gobolka waxay cagta ku soo mariyeen goobo laga waday deegaameyn sharci darro ah waxayna halkaasi digniino uga direen cid kasta oo ku hawlan deegaameynta cusub iyo xaalufinta dhirta